garabka uu hogaamiyo siyaasiga Jamaal Cali Xuseen ayaa markii ugu horeysay waxay si wada jir uga hadleen mowqifkooda siyaasadeed iyo waxa kaga aadan isbedelada siyaasadeed ee Soomaaliland hadda ka socda. Jamaal Cali Xuseen oo halkaas ugu horeyn ka hadlay ayaa yidhi horta waa ogeydeenoo wixii nagu dhacay Soomaaliland dhanna waa ka wada warhaysay oo taariikhdeeda ku noqon mayno. guddi 5 qof ah ayaan saaray oo anigu magacaabay guddidaa 5 qof ah waxa aan nidhi waxaad kulan la soo qaadataan wad xog nooga soo ururisay in aad ka la shirtaan labada xisbi qaran ee xisbiga wadani iyo xisbiga kulmiye maadaama xisbiga uu cudun laga burburay kadib markii 5 qof anigu aan magacaabay waxaan ka filayay 5 qof iyagoo inay ii yimaadaan oo mowqif midaysan ay igu yimaadaan sidaasay ahayd mandate-ka la siiyay waxa dhacday guddidii 5 qof way kala jabeen oo kala fikrad bay noqdeen waxay noqonaysaa maadaama ay guddidii ku kala jabtay in guddidii markaa mandate-keeda uu dhammaaday oo go'aan midaysan ay keeni waayeen dibna anigu iigu soo noqday maanta aniguna aan taladayda dib ugula noqon doono guddidan oo la shaqeynaysa raggii dadkii la soo halgamay waana ka fikirayaa ayaamaha soo socda anigoo qudhayda laftarkaygu markii horeeto go'aan ku qaatay inaan siyaasadda dhinac uga yar leexdo ayaamihii ugu dambeeyey waxa ay taageerayaasheeda iyo dadkeedu igu dhiirigelinayeen igu cabirayeen inaanan taa aan samaynin laftarkaygu aan cid culays ka saaro oo aan anigu qudhayda shakhsi aan ka badhayno marka aniga iyo intii iraacsan iyo intii xisbiga garabkayguna insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan sida ugu dhaqsaha badan leh ayaamaha soo socda inaan ku dhawaaqi doono meeshii aan cududeyda ku gelin aad u maasantay Jamaal Cali Xuseen sanadkii 2012 ilaa 2012 baad markii ugu horeysay siyaasadda lagu dhaxarko udubaa timid udubay ka burburtay cudbaad soo saartay oo tacabadaad gelisay dagaalkii uu cudad gashay waxay keentay in musharaxnimadii adiga aad weydid waxaana inta badan markii aad ahayd mucaaridka cud musharaxayd ku celcelin jirtay in Muuse Bixi Cabdi oo musharaxa kulmiya iyo hogaamiye Faysal Cali Waraabe dagaal ay kula jiraan waxaana soo baxay maalmihii ugu dambeeyay warar sheegaya inaad xisbiga kulmiyada hadal la furtay taageerayaashii iyo isbedelkii ee dhalintu ku raacday aad oran jirtay isbedel baan sameynaya aqoonyahan baan ahay ee isbedelka lagu jeclaa ma waxaadaysa wax ka duwan waxa saaxiibada wadan ay ku bireen mise kulmiyaad ku biri doontaa horta xamsow anigu aqoonyahan baan ahay maan oran waan ahay waan sheegtay maan oran waan ahay oo ummadda Ilaahay way ogsoontahay siyaasadana haddii aan xataa Muuse Bixi iyo dadkan kale aan eego dadar wax dhibaato kuma jiraan gaboosaba waa kii ku biiray isagoo la col ahaa ciro waa kii ku biiray ninka la yiraahdo Saleebaan Gaalmo waa kii ku biiray Siilaayo siyaasaddan weligeed way jiri jirtay dad col ahaa oo marka dambe isku biira siyaasaddu saaxiib joogta ma laha bay joogtaa wala Soomaaliland baa ku bartay taa laakiin waxaan ku sheegayaa go'aanka iyaga saaxiibadayadana way naga degdegeen maanaan kala fogay qudhowd ama iyagana ka daba tagaynaa ama kulmiyaan tagaynaa damashan doonar tagaynaa doon dhexdhexaad baan iska joogaynaa Saleebaan iyo gaboose oo siyaasiyiin waaweyn rugcadaaya laftirkooda wixii ay sameeyeen haddaan sameeyo daadan qalad baan. Assalaamu calaykum.